Kobaca dadweynaha ee sii kordhaysa ma mid wanaagsan baa mise waa mid xun? Kobacan dadweynaha waa dhacdo caalami ah oo sanadadii dambe ay ka taagneyd walaac iyo dood badan, iyadoo laga cabsi qabo inay keento caqabado dhanka nolosha ah. Waxaa kaloo lama huraan ah inaan qirno kobaca dadweynaha uu sidoo kale keeni karo waxtar badan. Warbixintan waxaan kugu soo gudbin doonaa labada cabsi ee kororka dadweynaha uu keeni karo, iyadoo laga eegayo sida labadaba u adkeyn karto in la heli karo horumar iyo kobac dhanka dhaqaalaha ah. Kobaca dadweynaha ee sii badanaya waa mid ka mid ah xaaladaha adag ee soo kordhayso. Cabsida laga qabana ay tahay in dadka hadda soo kordhaya ay waayaan cunto, guryo, waxbarasho, caafimaad. Taas ayaa ah mid keeni karta walaac kobaca dadweynaha. Dhanka kale, haddii aan ka fiirino kororka dadweynaha, waxa uu keeni karaa fursado shaqo oo badan, kuwaas oo looga faa'iideysan karo si loo kordhiyo wax soo saarka iyo kobaca dhaqaalaha. Taas oo dad badan u siin karto inay sameeyaan hal abuur cusub, iyadoo laga faa'iideysanayo tiknoolajiyadda iyo warshadaha si ay u soo saaraan dhaqaale badan oo waxtar u leh dadka, iyadoona keeni karta in la helo caafimaad, waxbarasho iyo guryo ku filan tirada dadka sii kordhayo. Kororkan xooggan ee dadweynaha sidoo kale waxay keeni kartaa in la helo shaqaale badan, taasoo si gaar ah muhiim ugu tahay wadamada soo koraya. Waxay horseedi kartaa horumar ballaaran, dhaqaale badan iyo wax soo saarka dalalka iyo isbeddelka nolosha dadweynaha. Taariikh ahaan, kobaca dadweynaha waxay si dhow ula xiriirtaa horumarka tiknoolajiyadda ee ah in la hagaajiyo tayada nolosha iyadoo la daboolayo baahida dadka sii kordhaysa, taasoo keentay in la sameeyo hal abuur. Tusaale ahaan, kacaankii warshadaha ee qarniyadii 18aad ilaa 19aad waxaa dhaqaajiyay baahida loo qabo in la daboolo baahida dadweynaha oo sii kordhaysa si degdeg ah.